markale ay soo shacbaxday war ku aadan Saha inuu ku beeri karayo kooxda kubadda cagta ee Arsenal. Saha ayaa sanadkii ku dhawaaday Arsenal, laakiin xalay wuxuu markale u cadeeyay madaxda Arsenal in uu wali rabi karo kooxda taageeraha uu hayraantiis ee Arsenal inuu markale ku beeri karo. Balse xalay mid kamid ah saaxiibadiisa ayaa kula kaftamayay in Saha uu ku soo socdo Arsenal. Mid kamid ah saaxiibada Saha oo ay xaflad ku wada caweynayeen ayaa xalay taageerayaasha bartiisa Instagram kaga yaabiyay. Ninkaas ayaa bartiisa Instagram ka soo geliyay qoraal uu ku leeyahay Saha to Arsenal. Saha wuxuu ku biirayaa kooxda Arsenal, laakiin mar dambe Saha ayaa wararkaasu beeniyay oo ku tilmaamay inay yihiin warar iska kaftan ah mooyaane inaanu jirin xaqiiqna ayna ahayn warka ku aadan inuu Arsenal ku biirayo. Balse Saha wali wuxuu muujinayaa inuu rabi lahaa inuu ku biiro kooxda Arsenal, mar dhaweyd buu ku biiri lahaa Arsenal, laakiin Arsenal bay qaadatay mooyaane. Marka xalay taageerayaasha Arsenal ba hal mar yani baraha bulshada isla qabsaday markii ninka lagu magacaabo waa ninka lagu magacaabo Anthony Pillin oo saaxiib la ah Saha uu bartiisa Instagram ka soo geliyay qoraal uu ku leeyahay Saha Arsenal buu ku biirayaa. haddaba Saha laakiin warka wuxuu ku tilmaamay iska yara kaftan ah, balse laga yaabay ninka inuu Crystal Palace ka tagi karo xilli ciyaareedka kan. Arsenal mar kale ay quudareynayaan baa leeyahay qaadashada ciyaartooykan. Marka wararka baraha bulshada haysta ee ku aadan Saha wuxuu ku tilmaamay inay warar kaftan ah oo mid saaxiibkiisba ku kaftamay ama ku soo yani yiri Saha Arsenal buu ku biirayaa mooyaane aniga baan heshiiska qaybta ah buu leeyahay gorgorinayo Saha ku qancinayo Arsenal ku biiro. Marka Arsenal ninkan aad bay u jeceshahay xilli Arsenal William iyo Coutinho iyo kale ay sugayaan xilli ciyaareedkan. Arsenal waxay doonaysaa inay sameyso heshiiska ugu weyn xilli ciyaareedkan, waana inay cishtaan ninka la yiraahdo Aubameyang ayaa ku dhow heshiis 3 sano inuu siixo kooxda Arsenal. waa ninka khatarta badan, waxa la Arteta heshiiskiisa ugu weyn wuxuu noqon doonaa inuu sii cishto Aubameyang ayaa Arsenal u dhaliyay 70 gool 109 ciyaar uu kooxda u ciyaaray, waxaanu kooxda ka caawiyay ku guuleysiga FA Cup oo uu lugtiisa ku reebay City ilaa iyo Chelsea. BBC waxay sheegayaan wararku inay doonayso ciyaartooyga Gandusi oo ay lacag kaasha siinayaan. Gandusi ayaa Arsenal u ciyaaray 20 June kadib khalaasa dhex maray isaga iyo Arteta. haddaba warku gudmay waxay leeyihiin Paris Saint-Germain doonaysa inay qaadato ciyaartooyga qadka dhexe ee reer Faransiis. warku gudmay waxay leeyihiin Arsenal heshiiskan waxay qayb ka dhigayaan midkood Lucas Torreira ama Hector Bellerin ama Lacazette oo la siinayo kooxda kubadda cagta Atletico Madrid si ay u qaataan ciyaartooyga Thomas Partey. marka waryaha Arsenal maxay u la baartaysaa horta dhaxdeeda kuma wuxuu maxaa dhacay Partey shubmiya waa roy horta marka qaal waa fiicay waa ninku wan ran waayaan, laakiin Partey wow way harki doonaa kollay wuxuu la yimaado. marka Arsenal ciyaartooyga ku bedelaan wali number 1 buu yahay ninka